wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland oo wali sii wada barnaamijka wacyigelinta muxaadarooyinka ku saabsan fadliga bisha barakeysan Ramadaan ayaa maanta wacyigelin ka qabatay qaar ka tirsan hay'adaha iyo talisada kala duwan ee ciidanka. Wacyigelintan oo ay fulinayeen culimada ka howlgasha wasaaraddu ayaa waxay maanta wacyigelin ka qabteen taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland, hay'adda duulista hawada iyo horumarinta madaarada iyo sidoo kale hay'adda caymiska qaranka. madaxa waaxda dacwadda iyo horumarinta tacliinta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Nuur Maxamuud Jaamac ayaa ka warbixiyay wacyigelinta maanta ee wasaaraddu ka qabatay hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaana hadaladiisii kamid ahaa bismillaah alxamdulillaah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى مهله رمضان مبارك sidii caadada ahayd walaalayaal waxaynu soo wadnay mudaba wacyigelintii bisha barakeysan ee Ramadaan ee hay'adaha wasaaradaha dawladda iyo talisyada ciidamada wasaaradahan waxaanu maanta wacyigelin u tagnay oo aanu ku soo marnay oo la soo wacyigeliyo culimadu tagtay taliska guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda duulista iyo hawada iyo horumarinta madaarada iyo hay'adda caymiska qaranka oo runtii dhammaantood ay si wanaagsan oo qiimo leh uga soo qayb galeen oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan uga mahad celinaynaa kulamada diiniga ah ee inoo qabsoomay ciidamada iyo shaqaalihii ka qayb galay ee wacdiga loo jeediyay iyo dhammaanteen محوها علماء جدي سبب إلهي سبحانه وتعالى هكون فعو وانا مسؤولية دينيد ووزارة السارن إني هدب هايد إيو وزارة دي يعيدما دي قرن كان يبل شده كلا رئيس Soomaaliland أتبسو مسؤولية الله إجمالية إني أمد جارسيسو وعدي الديني جاه يا رمها كلا الدين تلاحريره marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga mahadnaqina wacdigaas oo ku saleysnaa nidaamka maamulka iyo mas'uuliyadda ummadda loo hayo haday noqoto shaqaale iyo haday noqoto ciidan intaba iyo ka faa'iideysiga bisha barakeysan ee Ramadaan si wanaagsan buu soo dhamaaday waxaana iyana ku ladnayd in culimadu uga jawaabaysay wixii su'aalaha ay qabaan shaqaalaha iyo ciidamadu la xiriira mas'uuliyadahooda shaqo iyo sidoo kale in loo qaybiyay hadiyadii ugu qaalisanayd oo ahayd kitaabka Quraanka iyo qowlka Eebe Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh geesta kale mas'uuliyiintii wasaaradaha ay booqdaan culimadu ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay culimada ka socota diinta iyo awqaafta ee wacyigelinta bisha Ramadaan ka sameeyay talisyada ciidanka iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda iyagoo sidoo kale uga mahadnaqay hawsha khayriga ah ee u hayaan qaranka bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ugu horeyn iyo ugu dambeynba mahadle marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta saacadka waxaan u mahadnaqayaa cududda shaqaalaha wasaaradda duulistii hawada iyo horumarinta madaarada oo iyaguna ku sugan goobtan oo maanta u jeedin doontaan wacyigelinta wacdigiyo waanada almaamahanba ka wadeen wasaaradaha iyo hay'adaha dalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabada diiniga ah ee wacdiga waxaan rajeynayaa inaad si fiican u dhageysan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo wixii su'aalaha culimada weydiin doontaan waxa weeye waa maalmihii khayrka lahaa aan rajeynaa inaan ka faa'iideysan doono haddii Ilaahay yiraahdo